maamulka Puntland ayaa sheegay in saddex ka mid ah kooxaha burcadbadeeda Soomaalida ee haysatay markabka lagu magacaabo MV Iswar ay isku soo dhiibeen maamulkaasi Puntland kadib cadaadis iyo howlgallo ka socday xeebaha gobolka Mudug ee maamulkaasi Puntland. Raggan ayaa la sheegay in ay isku dhiibeen odayaasha dhaqanka ee degmada Jariban iyaga oo sheegay in ay ka baxeen falalka burcadbadeednimada isla markaasina ay cafis ka dalbanayaan maamulkaasi Puntland. Odayaasha deegaanka ee degmada Jariban ayaa maamulkaasi Puntland ka codsaday in cafis loo fidiyo raggan waxaana maamulka u aqbalay codsigaasi kadib shir ay yeesheen odayaasha iyo taliyaasha saldhigyada degmada Jariban ee maamulkaasi Puntland. Puntland ayaa muddooyinkii dambe xoojisay howlgallada ka dhanka ah burcadbadeeda ee ka socda xeebaha gobolka Mudug, Karkaar iyo Bari, halkaasi oo weli lagu haysto saddex markab oo ay afduubteen kooxaha burcadbadeeda Soomaalida. Maamulka Puntland ayaa horey u sheegay in uu sii wadi doono dagaalka ka dhanka ah burcadbadeeda iyo kooxaha kale ee amniga qalqalgeliya ee ka howlgala xeebaha kala duwan ee maamulkaasi Puntland.